xaflad ay soo qaban qaabisay shirkadda xawaalada Tawakkal Express ayaa lagu qabtay waqooyiga magaalada Tan London ee Finsbury Park. xafladan oo la jeedkeedu ahaa furitaan xafiiska maamulka ee Tawakkal Express ee ka furatay wadankan UK iyo kor u qaadista xiriirka u dhaxeeya shirkadda iyo macaamiisheeda ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Tan London iyo ganacsato Soomaaliyeed. ugu horeynba waxaa halkaasi khudbad soo dhaweyn iyo wacyigelin isugu jirta ka soo jeediyay Sheekh Cabdirasaaq تكر. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل ننقبي عرب هذا كورير وحيري ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع محاكا وناكسن قفك هدي أي سقود درسمان الدنيا حلال إيو الدين لوضع سوحكا وناكسن مال هدي قفك سقود درسمان iyadoo halkaasi ay khudbado kala duwan ka soo jeediyeen madaxda Tawakkal iyo waliba ganacsatadii halkaasi ku sugnayd ugu dambeyntii ayaa waxa hadalka lagu soo dhaweeyay maamulaha xawaalada Tawakkal ee UK Engineer Umar Cabdinuur Nabadoon oo halkaasi khudbad uga warbixinaya xawaalada ka soo jeediyay waxaana hadalkiisa ka mid ahaa boosaaso kale dhammaan magaalooyinka Soomaalidu ay imaartay concentration ku leedahay ee ay degan tahay ama ay ka ganacsato waxa qorshaha ugu jirta shirkadda in ay banks ay ka furto oo ay maartay qaabkii bangiga iyo sarraafka ama sariflayaasha ay u habaysan tahay waxa taas marka asaas u ah in shirkaddu ay samaysato hanti ma guurtaan ah oo ay guryo waaweyn ay ka dhisto meelahaas oo dhan si ay maartay u noqoto shirkad leh hanti ma guurtaana ama meel loogu soo hagaago oo dadku lacagtooda dhigtaan ila bangi waxa lacagta la dhigtaa markuu raasamaal leeyahay marka sidaas ayaa maartay shirkaddu ay qaabkaas ayay siyaasiyan ku socotaa waa xagga maartay bayska xagga technology-ga iyo service-ka shirkaddu aad bay maartay iyaduna ay horumar u sameeysay sanadihii ugu dambeysay gaar ahaan sanadka hadda la soo dhaafay waxa sidoo kale talada ugu sii jirta in ay hore u sii socoto oo مثلا hadda waxa yaala la isticmaalo waxa kamid ah SMS-ka iyo message-ka noocaasa qofku markuu lacag dirsado qofku u diray u dhacaya markii lacagtii la qaato qofkii diray u soo dhacaya waxaan ku tala jirnaa inaan sameeyno in qofku gurigiisa ka dirsado shirkadda asagoo aan maartay agency-giiba imaanin oo online oo credit system ah ayaan soo wadnaa insha Allah taala waqti aan fogeyn waxyaalahaas oo dhan marka waxay saacidayaan in service-kii sidii hore loo sheegay daqiiqad iyo 2 daqiiqo iyo 3 daqiiqo ay dadkii ay ku gaaraan oo ay ku maartay ay lacagtoodii ku helaan Engineer Umar Cabdinuur Nabadoon oo hadalkiisa sii watay ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in xawaaladu ay ka mid tahay kuwa ugu tayada wanaagsan ee Soomaalidu ay leedahay isla markaana ay tahay xawaalada ugu sareysa ee Soomaaliyeed ee ka jirta wadanka Mareykanka ciwaanka haddaan idiin sheego halka ay tahay xawaalad xarunta UK Tawakkal waxa weeye 183 Sisters Road. gabagabadii xafladda ayaa waxaan la kulmay mudane Cabdirashiid oo ah maamulka maqaayada Iimaan oo ahayd halkii xafladdu ay ka dhacday waxaana weydiiyay sida uu arko xafladan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ka maamul ahaan anoo ku hadlaya codka maqaayada Iimaan xafladii maanta ka dhacday magarasa ku saabsanayd horumarka yaana Soomaalidu ay gaadhay oo ahaa kan yaana xawaaladaha maanta money transfer-ka oo yaana Soomaalidu ay sameynayso ka maamul ahaan aad iyo aad ayaan anagu ugu faraxsanahay waxaana jecelahay inaan kuwa dambe soo socda sida tan oo kale inaan uga qayb qaadano marti waxaad kamid ahay dadkii ka soo qayb galay xafladan sidee kula muuqataa waxay ahayd xaflad aad loo soo habeeyay xaflad aad u qiimo badan waxay ahayd xaflad ay businessyada maanta adduunka jira oo isku taga ah kuwa ugu horeeya kamid ah minaha Soomaaliya aad bay ugu baahan tahay xawaalada noocan oo kala iyo in laga faa'iideysto technology-da minaha arinta in qofka lacagtu diray ay ku soo laabo ku helayo feedback degdega isagoo dhaqaaqin ama uu ka dirsan karo gurigiisa xawaalada haduu ka yahay member oo qaadanayo bank sidii uu isticmaalayo waxa waa waxyaalo horumara waxaan qiyaasayaa xawaaladan inay tahay la qabsatay qarniga 12aad kuna jirta xawaaladaha ugu horeeya xafladan furitaanka
xafiiskan cusub iyo soo dhoweynta macaamiisha Tawakal ayay dadku aad iyo aad ugu faraxsanaayeen iyagoo dadweynuhu ay ku farxeen xafiiskan maamulka cusub ee laga furay waqooyiga magaalada tan London ee Finsbury Park. Cabdinaasir Xirro, ETN, London.